aabaha dhaantada muusiga leh ee Soomaalida ayaa loogu yeeray oo horaantiis waxay ahayd mid jiib iyo jaan uun leh dhaantadu ha yeeshee Cali Bashiir Cabdi Cali Dhaanto waxa uu albaabada u furay caynka lagu dhaanteeyo casrigan ee muusiga leh midaas oo dabadiis bahafaneed ballaaran yeelatay طيح نور المضيي ذهبي حريري تطابنا قلبي وضايعي بدي بقى ونايا لنيو نعندو تلمن بيزاقا bilowgii sida isaguba sheegay waxa uu tartan kula jiray hobolada muusiga dhaqanka ah ku heesa ee qoomiyadaha Itoobiya oo uu doonayay inuu docdo Soomaalida golo keeno wax iyaga lagula tartami karo midaas ayaana ku riixday inuu bandhigo dhaanto muusig leh markaana waxa igu jirtay aniga hami oo ay galay markaan fanka soo galay markii hore banaanka joogay igu jirtay TV-ga Itoobiya hanka markii meesha aad joogto meel kale aad uga baxin hanka qofku ma dhaafsana meesha ayada TV-ga saacad baa jirtay Itoobiya la siiyo qoomiyadaha kala duwan saacadu markuu leeyahay deegaanku saacada marka deegaanku uu leeyahay saacadaasi waxa laga soo daayaa warka markii la soo daayo qoomiyadaha kale dhaqankoodii iyo dhalinyaro yar dhaqankoodii ku heesayso garbaha iyo qoomiyadaha kala duwan baa la sii daayaa teena wax dhalinyaro oo ka heesaysa ama dhaqan ma sii daayaan fanaaniintii oo inay heesay ugu lowday heesa fiican oo qeyro leh oo de murti ay qaadahayaan baa laga sii daayay marka wax dhaqan ka matala oo ama ciyaar dhaqameeda ama astaantii oo dhar hidii dhaqan waxaas in marka inta badan ma jirin taa waxa reenu jiray marka niyow wax bedel maxaa loo laayay sida markaan meesha anigu soo galay marka waxaan go'aansaday marka inaan dhaantada aan bilaabo oo muuqaal u sameeyo marka Cali geedigiisa dhaantayntu halka ayuu ka bilowday yarta dheer oo ah tan ugu caansan dhaantooyinkiisa ayaana ka dhigtay mid bilowgii si weyn looga yaqaan guud ahaan Soomaalida dhexdeeda yartan dheereeyada dunta maariila sida dheftaan caloosha ku dhiigan lahaa Cali kaliya ma aha dhaanteeyo ku luuqeeya miraha abwaanada sidoo kale waa curiye qayb ahaan isagu alifay miraha dhaantooyinkiisa dhaantadii marka waa la fadhiyay abwaani badan baa meesha fadhiyay marka hal tuur baa marka أحمد ولا كل أحمد ولا مايستر أحمد ريو توري ضد مريض أيه لا مدبي دحين باس دقاجنا ما لود ده إن بل هنغن كينو نكسل بو لحنك صاري مركو حيد عن تاس مركو هالتور أنا نفتيو عيلك دوبوي بيكده مساعدة حوجا يركل فوقان شيء مارت يندري ما مركو عيدان كتور ماشي لأن تدا مركو سامين بيقول هاي marka laga yimaado inuu hobolada Soomaalida kaga duwan yahay nooc faneedka uu ku caan baxay mid kale oo uu uga duwan yahay bahda fankeena ayaa waan jeclaan lahaa fankayga intuu sameeyo dhaqaale aad u badan sida dunida kale inaan dadkayga wax u tari karo oo iskuul iyo waxbarashooyin iyo caafimaad aan u dhisi karo oo sameyn karo maaragtay donate oo aan oran karo iskuul hebel had ciyaartooyda kala wada aragtay fanaaniinta adduunka wada aragtay wadamada Afrika intay meel yimaadaan bay iskuul ka dhisaan oo waxbarasho dad geeyaan oo wax dhisaan fanka Soomaaliga sida ma taas adduunka kale waan jeclaan lahaa inaan gaaro way dhici kartaa bari ka maalin artaan inuu siyaasadda ku jira waxa ay qorshaysan ma jiro laakiin way dhici kartaa hadii aan isu maleeyo inaan marka ayada ah inaan meesha wax ka qaban karo ama aan isleeyahay haleelahay wad ku fiicnaan la inaad wax qabato waxaad qaban kartaa waa laga yaabaa siyaasadda inaan soo galo inuu bulsho dhaqankeed bulsho kale la tartansiiyo ayuu ku bilaabay taa oo ka dhigtay inuu magac iyo muunadba ka helo hilinkaas dhaantaynta oo door kobcina ka qaadatay dhaqanka Soomaalida oo idil haatanna kaalmayn bulsho iyo siyaasad ayuu doonayaa inuu mustaqbalkiisa faneed ku gabagabeeyo taa oo ah han kale oo naadir ah marka laga hadlayo meelaha ay ugu dambeyn u xuubsiibtaan bahfaneeda kale ee Soomaalidu